gudoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya gudoomiyaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxweynaha dowladda Jubbaland madaxweynayaashii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaarihii hore ee xukuumadda federaalka Soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee aqalka sare madaxweynayaashii hore ee dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka dhammaan mas'uuliyiinta golaha wasiirada baarlamaanka federaalka golaha wasiirada iyo xildhibaanada dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka mas'uuliyiinta iyo marti sharafta dhammaan ka soo qayb gashay madasha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qofkii aan xusay iyo qofka aan xusin barnaamijgelin baan siinayaa qof kasta waxaan ku salaamay mansabka iyo magaca uu ku fadhiyo uu uga soo qayb galay madasha mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal marka hore sharaf weyn bay ii tahay inaan ka soo qayb galno madashan aad iyo aad muhiimka u ah ee sanadkiiba mar qabsoonta waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo casuumaadda soo dhoweynta diiran martigelinta iyo maamuuska naloo sameeyey madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Deni dowladda iyo shacabka reer Puntland sida sharafta badan ee martigelinta aan qiimaha badan u sameeyeen waxaan sidoo kale halkan uga mahad celinayaa madaxda iyo howlwadeennada macadka Heritage oo noo qabtay kulan sanadeedkan aad iyo aad ka agaasiman laguna soo qaaday arrimaha aadka muhiimka u ah mudanayaal iyo marwooyin waxaan rabaa inaan halkan waxaan si gaar ah u bogaadinayaa walaalahay runtii sida ay howlsamida leh sida agaasimka wanaagsan leh halkudhigyada maanta ka turjumaya xaaladahan hor yaalla oo ay ugu horeeyaan qodobadii lagu soo qaaday ama lagu soo bandhigay kow qabashada doorasho qof iyo cod ah oo ku salaysan xisbiyo labo amni sugan oo gacanteenna ku jira saddex nidaam federaal oo si wanaagsan u shaqaynaya ugana dhaqan gala dhammaan Soomaaliya afar dastuurka oo la dhammaystiro aftina loo qaado muddo xileedka cusub ee 2022-2025 runtii afarta qodob oo si wacan oo qoto dheer looga fakeray oo mid walba uu kan kale ku xiran yahay in la xaqiijiyo qodobadaas sanadka 2025 waxay ku xiran tahay sida aan u shaqayno saacaddan maantadan ama caawadan aan joogno laga bilaabo ilaa laga gaaro doorashada midaan xigta anigoo ogsoon in madashan ay ku sugan yihiin madax iyo mas'uuliyiin Soomaaliyeed murashaxiin iyo aqoon-yahano waxay ila tahay inay fadhiso in ku filan inay talo waxgal ah ka bixiso walaalayaal sida aan u ekaanayno 4 sannadood kadib horumarka siyaasadeed ee aan gaarayno xasilloonida abni ee aan helayno waa wax gacanteenna ku jira oo aanan meel kale laga doonayn waxaana saldhig u ah sida aan u maarayno doorashada taagan sanadkan 2020-2021 isugu tanasulno u dhammayno farqiga iyo aragti kala duwanaanshaha jira ee aynan inagu isu muuqan
ee aan eegno mustaqbalka wanaagsan ee jiilasha Soomaaliyeed soo socda. mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal, haddii aan nahay reer Galmudug waxaad wada ogsoon tihiin dadaaladii isdaba joogga ahaa ee aan ku bixinnay sidii la isugu soo dhoweyn lahaa dhinacyadii ku kala duwanaa arrimaha doorashooyinka ee labada heer dowladeed, dalkana ay uga dhici lahayd doorasho la isku waafaqsan yahay sida shirarkii Soomareeb 1, 2 iyo 3 ama 1 iyo 2 iyo 3 dhammaystirkii bishii September 12 ee Muqdisho. intaa kadib waxaa soo ifbaxay tabashooyin la xiriira hirgelinta hanaankii doorasho ee lagu heshiiyey. sidaa darteed waxaad ogtihiin in aan weli ku guda jirno dadaaladii lagu xalin lahaa tabashooyinkaas, annaga oo kulamo dhowr ah la yeelannay oo arrimahaas quseeya, oo ay ugu dambaysay kulankii aan gaalkacyo ku yeelannay aniga iyo saaxiibkay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani, kaas oo aan aragti midaysan ka yeelannay in aan u istaagno xallinta khilaafkaas iyo tabashooyinkaas. waxaanan hadda ku mashquulsannahay in aan dhammayno madmadowga yar ee ka soo ifbaxay hirgelinta hanaankii doorasho ee lagu heshiiyey, iyada oo ay weheliso imaanshiyahayga halkan iyo ka soo qaybgalka shirkan in aan kulamo wax ku ool ah la yeesho walaalahay madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo madax kale oo mudan in lagala tashado arrimaha tabashooyinka ka jiraan. waxaan hadda runtii kulamadaas oo aan rajaynayo in ay ka soo bixi doonto insha Allah natiijo wanaagsan oo xal u noqota dalka oo ay ka qabsoonto doorashadii lagu heshiiyey. waxaanan dhammaan ka codsanayaa madaxda iyo waxgaradka Soomaaliyeed meel ay joogaanba inay gacan ka geystaan. waxaa mudan in la bogaadiyo shirweyne aqoon-yahanka iyo madaxda Soomaaliyeed ee ka soo qayb galeen oo looga doodayo oo maskaxda la shiilayo lagana fakarayo sida ay Soomaaliya u ekaanayso 4 sannadood kadib, iyo in si xasiloon oo mas'uuliyad ay ku jirto loo maareeyo sidii loogu gudbi lahaa muddo xileedka baarlamaanka 11aad. 4 qodob ee Heritage sanadkan ugu tala gashay doodda sida aan horay u sheegay waa kuwo si dhab ah u taabanaya dadaalka dhismaha dowladnimada Soomaaliya. in laga dhabeeyo in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah, amniga dalkeenna la wareegno, nidaamka federaalku si wanaagsan oo loo wada dhan yahay loo hirgeliyo, isla markaana dastuurka la dhammaystiro. waxay nooga baahan tahay heshiis siyaasadeed, go'aan qaadasho dhab ah, shaqo adag, kalsooni iyo is-aaminid la taabagelin karo siyaasadda loo dhan yahay, wada shaqayn heerarka kala duwan ee dowladnimada iyo taageerada beesha caalamka. si loo xaqiijiyo himilooyinka 4 ah, waxaan soo jeedinayaa 1 in madaxda dowladda federaalka ee dowladaha xubnaha ka ah iyo golayaasha kala duwan ay degsadaan ajande qaran oo 4 sano oo soo socota la xaqiijinayo. ajandahaas oo uu ugu horeeyo dhammaystirka dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo tiro iyo tayo ahaanba ku filan inuu dalka ka xoreeyo cadowga argagixisada ah. mas'uuliyadda kala wareega AMISOM isla markaana
ay ka muuqato muunad qarannimo oo uu ku hanan karo kalsoonida shacabka Soomaaliyeed. labo, madaxdu waa inay sidoo kale dardar gelisaa dhammaystirka dastuurka maadaama uu gundhig u yahay hirgelinta nidaam federaal oo si sharci ah u daadejiya awoodaha iyo adeegyada dowladnimo. saddex, dalka oo la xoreeyo iyo dastuurka oo la dhammaystiro waxay ahaayeen caqabadda ugu weyn ee hortaagan doorasho qof iyo cod ah oo dalka ka hirgasha. haddii aan qodobadaas ku guulaysanno waa ay noo fududaanaysaa in aan dalka ka gaarsiinno meel ay dadweynaha Soomaaliyeed codkooda ku dhiiban si kalsooni iyo dimuqraadiyad leh oo xor iyo xalaal ah. ugu dambayn waxaan ku talinayaa dhammaan in aan ilaalinno danta dalka iyo dadka ayna nooga horrayso danteenna gaarka ah isla markaana aan ka fogaanno wax kasta oo dib noo celin kara ama dalka ka abuuri kara qalalaase na dhaxalsiin kara qaranjab. runtii waxay tahay maanta waxaan u baahannahay hadal kasta midka uu ka hufan yahay ka qabow yahay ka maslaxo badan yahay. waxaan heshiinay oo heshiis gaarnay iyadoo aan cid nagu dhex jirin Soomaaliyana aan loo kala dhex jirin. heshiiskaas waxaa la geeyey golayaasha dastuuriga ah oo meel mariyey. intaas cid Soomaali ku dhex jirtay ma ay jirin. annagaa ku heshiinay heshiiskaas soo wada dhoweynay isla wada qaadanay. maantana waa hirgeli karnaa heshiiskii oo sidiisii ah iyo dhaliilaha iyo tabashooyinka oo aan xallisanno. ugu dambayn waxaan shirka u rajaynayaa inay ka soo baxdo talo dhaxalgal ah Soomaalidu u aydo 4 sano soo socoto wax lagu dhiso cabir fiican laga qaato oo runtii wax lagu dul dhiso iyo talooyin kale lagu soo biiri doono intaba. waxaan rabaa inaan mar kale halka uga mahad celiyo madaxweynaha Puntland iyo dowladda iyo shacabka reer Puntland martigelinta wanaagsan soo dhaweynta sharafta badan. sidoo kale waxaan halka uga mahad celinayaa madaxda iyo howlwadeennada macadka Heritage oo aan leeyahay waa ku mahadsantihiin agaasimka shirkii ugu horreeyay ee lagu qabto Soomaaliya gudaheeda sida u soo agaasinteen. waxaan rajaynayaa guul isfaham iyo doorasho oo dalku u galo insha Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.